السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراءة دمانتين والسلامنتهن. waxaan ileenahay soo dhawaada maanta waxaan isla qaadan doonaa casharkeena oo ahaa computerka. maanta mawduuceenu wuxuu ku saabsan yahay waa output device, maadaama aan qaadanay input device-ka iyo keyboardka iyo mouse-ka iyo sida loo isticmaalo wax dhan waa soo qaadanay. fadlan qofkii su'aal ka qabaan ama wax aan ka fahmin fadlan commentiga na web waxaan si dhaqsiya badan ku soo jawaabi doonaa insha Allah, ama groupka WhatsApp-ka noo soo dhig wixii aad fahmi waysan insha Allah. maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay output device. magaca casharkii oo kan ka hooyay dad daawinin oo ahaa muuska, isticmaalka muuska. fadlan casharkaas si fiican u soo daawo si aad casharka la qabsato. waxaan gudaha u galayaa casharkeena. maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay waa output device. aaladaha computerka wax ka soo saaro ayaa la hayaa output device. waxay soo saaraan waxaa ka mid ah daatada ayaa ka mid ah. waxa shay ugu muhiimsan ay soo saaraan waa daatada. marka waa sidaasi output device. waxaan si fiican u soo fahanay input device-ka ayaa si fiican u soo fahanay iyo device-yada loo isticmaalo in input device la suubiyo. haddana waxaan gudaha u galeynayaa waxay aaladaha computerka wax ka soo saaraan. output device is used, waxaa loo isticmaalaa output device transfer data out the computer computer system. output device waxaa loo isticmaalayaa in xogta daatada balaanka loo soo dhigo. xogtaasoo ka timid system computer ka timid, taasoo la qaaweeyey format lagu suubiyey la qaaweeyey. waxaa ka mid ah waxyaalaha balaanka loo soo saaray. waxaa ka mid ah text ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah images ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah soundna ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah videos ayaa ka mid ah. marka kuwaas dhan waxay ka mid yihiin waxyaalaha balaanka loo soo saaro. qaybtani textiga iyo imagiga iyo soundiga iyo videoska waxay ka mid yihiin waxyaalaha oo computerka balaanka kusoo bandhigo, waana waxyaalaha computerka lagu soo habeeyey weye. marka waxaa jirta aaladooyin ama deviceyo oo output device ay suubiyaan oo loo isticmaalo output device. number 1 waxaa ka ah shaashada computerka ayaa number 1 ka ah. shaashada computerka wax usoo bandhigo ayaa number 1 ka ah output device-yada. marka waa maxay output device? halkaan ay ku qeexi doonaa what is the monitor. waa maxay monitor ama shaashada? waxaa la monitor shaashada oo looks like wuxuu ogaa sida telefishinka camal oo ogaa. it's an output device waay, waana wuxuu ku tusiyahay waxyaalaha computerka wax usoo bandhiga balaanka oo wax usoo bandhiga ay ka mid yihiin. marka sidaas u sheegnay casharkan oo kale wuxuu ka hadlaa input device. input device waxa waaye waxyaalaha computerka wax gudaha u geliyo. output device waxyaalaha computerka wax soo saara output device. marka monitorka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha computerka wax ay balaanka kusoo saarayo ka mid yahay. waxaan loo isticmaalaa to display information, inaad informationka ama bixinta oo balaanka usoo bandhigo ayaa loo isticmaalayaa monitorka. waxaa jirta uu leeyahay there are two types of monitor. waxaa jirto laba nooc oo monitor ah jirto. waxaa number 1 ah LCD iyo CRD. LCD oo loo soo gaabiyo liquid crystal display ayaa loo soo gaabiyaa. CRD oo loo soo gaabiyo cathode ray tube ayaa loo soo gaabiyaa. marka labada nooc waaye, labadaas qayb ayaa looga qaybinayaa monitorka. waxaan maleynayaa inaad fahanteen monitorka. monitorka waxyaalaha uu soo bandhigo waxaa ka mid ah daatada waxaa la soo bandhigo oo monitorka soo bandhigo. waxaa ka mid ah audioga, codka ayaa ka mid ah, documentiga, pictureka ayaa ka mid ah. kuwaas dhan waxay yihiin waa output. waxay ka mid ah waxyaalaha computerka balaanka kusoo bandhigi ay ka mid yihiin. marka aaladaha computerka wax soo bandhigana waxaa number 2 ah printerka. number 1 waxaan sheegnay inuu ahaa monitorka. shaashada hadda computerka isticmaalin oo waxa noo soo bandhigayo ayaa ahaa number 1 monitorka. number 2 waxa waaye printerka. aan isticmaalin printerka aan wax ku daawacno. wuxuu suubinayaa monitorka daatada aan documentiga aan diyaarinay ayuu balaanka usoo bandhigayaa monitorka printerka.
marka number 2 waxaa printerka ah. number 3 speakerka. waxaa loo isticmaalaa speakerka, waxaa loo isticmaalaa codka inuu bedelo oo balaanka usoo bandhigo ayaa loo isticmaalaa. codkan oo caadiga ah qofka inuu u bedelo cod electronic ah uu bedelo kabacdi balaanka loo soo bandhigo. marka sidaas weeye. marka waxaan maleynayaa output device-yada inaad fahanteen. marka cashirkeena oo cashirkeena kalena oo qaadan doona waa chapter 4. marka waa ka cashirkaan si fiican usoo daawada. cashirkaan wixiis aad qabtaan soo dhiga kabacdi waxaa si toos u bilaabi doono programmingka oo loo yaqaano MS-DOS. waa program aas-aasi ah. cashir kale ku sharxi doonaa. marka waa ka insha allah aad ay u mahadsantihiin sida wacan aad ila socoteen.